kulankan ayaa ahaa mid sanadle ah oo isugu jira quraan aqris iyo wadatashi ay Muqdisho ku yeesheen beelweynta Masar Saransoor qaybaha kala duwan ee beesha ay ka soo qayb galeen waxaan ugu horeeyay ogaasi salaadiin caaqilin nabadoono iyo odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo haweenka qaybahooda kala duwan ee beesha madal loo dhan yahay ayay ahayd daafurka munaasabada waxaa ka hadlay kana warbixiyay ujeedka Cumar Doolow xafladan waa teeni insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inaan guul tan ka sii weyn aan gaari doono Soomaali weyntana waxaan ogeysiinayaa inay tahay beesha Masar Saransoor beesha ugu nabadda jecel Soomaaliya sidoo kale dhinaciisa hadalka waxaa qaatay ogaaska beesha Masar Saransoor Sheekh Maxamed Cabdi Yuusuf waxaana uu sheegay inay muhiim tahay beeshu inay badiyaan isu imaatinka kulamadan oo kale si ay ayahooda ugu tashadaan kulankan waa kulanka aad taqaaneen oo kulan sanadlaha ahay ilaahayna waa lagu baryaa waa duco kulan ilaahay lagu baryo laguna tashada liskuna cafiye liskuna arka waay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanaynaa kulankii ilaahay ka raadi noqday oo wanaag iyo khayr iyo barwaaqo iyo bashbash lagu gaaro inuu ilaahay nooga dhigo subxaanahu wa ta'aala ilaahay odayaashii dhaqanka beeshayna dhankooda goobta ayay ka hadleen waxaa weeye dalka kan kulley nin walba wuxuu iska dhigu noqonayaa waxaa la rabaa in loo istaago sidaan ku heli lahayn xuquuqdaan ku leenahay qaranka Soomaaliyeed waxaan leeyahay horay u sii wada ha ka daalina ninka xun oo aan arkaynin wanaagga iyo isqam qabsigaas aan arkaynin haddee dad laawa ninkii kuriya dad xuma ninkii ku yiraahdo dad laawa la dhaha cadceed soo baxayso dhulka saaqda idilkeed la saadaalinayo dadku wada sugayaan ayuu suuradiisa leeyahay Masare anaga waxaan rabnaa horumaraan rabnaa barwaaqaan rabnaa bashbashaan rabnaa insha Allah ilaahay idinkiisa waxaan rajayn doonaa insha Allah ta'ala ciidaan oo horumar iyo barwaaqo ibshaar gaartaan horta ilaahay idinkiisa rajaynaynaa Hani Sheekh Cabdiraxmaan kuna hadlaysay codka haweenka halkaasi ku sugnaa ayaa sheegtay inay soo dhaweynayaan kulamada caynkan oo kala ah gabdhaana waxaan leeyahay waxba ha baqina waxba gadaal ha gelina gabdhaha gabar walba iyada ugu horeyso familkeeda iyo dadkeeda inaan waxaan rabaa intaan in ka badan ba aad sameeysiin gudoomiyaha dhalinyarada beesha Maxamed Cabdi Geedi iyo sidoo kale gudoomiyaha marjaca beesha Xareed Xuseen Cismaan qodbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa halkaasi wadajir ugu jeediyeen mar walba si lagu soo celceliyo culimadeena ku soo celiyaan odayaasheena ku soo celiyaan dhalinyarta ay ku soo celiso Soomaali waxay ku maahdaa gacmo wada jir ay wax ku gooyaan haddii maanta gacanta isqabsano darbi aan noqono waxna jibin kara ma jirto inta badan guddiga marjaca howluhu qabto howlaha cidda aasaaska ah ama u ah ciidan sidii maaragtay meel sareysa loo gaarsiin lahay asagoo kaashanayo odayaasha iyo guddiga dhalinyarada guddiga marjaca inuu wax badan halkan idinka soo tubin doonaan insha Allah rajaynaya gabagabadii kulanka waxaa laga soo saaray warmurtiyo dhowr qodob ka koobna warfidiyeenka waxaa la wadaagay Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Rashka afyeenka beesha Masar Saransoor maanta oo ah maalin jimco ah taariikhdu ay ku beegan tahay 9-ka bisha 7aad 2022 waxaa magaalada Muqdisho ka qabsoomay kulanka sanadlaha ah ee beelweynta Masare kulankan waxa uu iskugu jiray quraan aqris iyo wadatashi waxaana gabagabadii kulanka laga soo saaray oo ka soo baxay warmutiyeedkan oo ka kooban 6 qodob beesha Masar Saransoor waxay cadeynaysaa in ay si weyn u taageersan tahay sida ay hadda wax u socdaan oo la xiriira arrimaha doorashooyinka dalka iyo in dalka uu aaday ama uu jihaystay doorasho 2 beesha Masar Saransoor waxa ay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir u cadeynaysaa in beesha ay xuquuq badan uga maqan tahay gobolka Banaadir waxaana ay ku baaqaysaa in ay wax ka qabato cid walba oo ay qusayso arintan 3 beelweynta Masar Saransoor waxa ay aad uga xun tahay habka wax wada qaybsiga ee 4.5 oo aan ahayn hab xuquuqdooda simaya dhammaan beelaha walaalaha aan nahay waxaana beesha Masare ay cod dheer ku sheegaysaa in ay ka mid tahay beelaha ku dulman 4.5 4
beesha masare saransoor waxa ay soo dhoweynaysaa natiijadii ka soo baxday isutagii beesha masare ee ismaamulka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya kaasi oo la xiriira arrimaha isu beddelka xildhibaanada beesha masare. 5 beesha masare saransoor waxa ay ku baaqaysaa kulan weyne wada tashi ah dal iyo dibad oo ay iskugu imaan doonaan culimada, odayaasha, aqoon-yahanada, dhalinyarada iyo haweenka beesha masare waxaana kulan weynahaas loo dhan yahay looga arisan doonaa aayaha iyo masiirka beesha. 6 beesha masare saransoor waxa ay u mahadcelinaysaa xildhibaanada, wasiirada iyo beelaha kale ee walaalaha aan nahay ee habeen iyo maalin u taagan dib u soo celinta xuquuqda naga maqan ee beesha masare saransoor. gabagabadii warmurtiyeedkan waxaa ku siixan ugaaska beesha masare saransoor ugaas Sheekh Maxamed Cabdi Yuusuf wabillahi tawfiiq. Faaduma Cabduqaadir Xasan raadiyaha TV-ga Dalsan Muqdisho. si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.